ciwaanka waa kana common gastrointestinal parasites of goat khaasatan magaca goatka waxaa loo yaqaanaa Capra aggregatus hericus oo waxay dhahaan scientific names waxay dhahaan common namekiisa goat laakiin scientific namekiisa wuxuu yahay magaca khaasatan marka waxaan ka baarinay muqdisho dagsi intaan gudaha galay marka waxaan rabaa inaan kuu sheego goatka Soomaalida maxaa farq u dhaxeeya waxaan naqaanaa there are two types of goat for traditionally ahaan Soomaalida u haysta one is waxaa lagu magacaabaa gala ama waxay dhahaan Somali goat inkastoo yiraahdaan saddex shay waxaa jira oo animalska Soomaalida dhaqdo oo magaca Soomaali la raaciyay ko Somali goat labo Somali sheep saddex waxay dhahaan Somali cat saddexdaas animal waxay ka mid yihiin saddex animal oo magaca markaa raayso common name-koodu uu raacsan yahay magaca Somali marka waxaan leenahay nooca labaad ee dhaqdo waxa lagu magacaabaa Arabian goat sidoo kale waxa loo dhigaa ay yiraahdaan short eared goat watan dhagaabka ah waxay u yaqaanaan gala ama Somali goat the Arabic type oo loo yaqaan long eared goat oo u naqaan Carbeedka waxay yiraahdaan dairy type waa nooc caanaha badan soo dhaaf dugsi hadafka aan rabnay marka inaan gaarno baxsiga aan ka gaarno aan rabnay wuxuu ku salaysnaa sida tan koow wuxuu ahaa inaan ogaano common gastrointestinal parasite-ka oo khaasatan laga helo Somali goat especially si marka dadka aan u niraahno kaas iyo kaas waa zoonotic iska ilaaliya marka waxaan leenahay markaan waxaan ku sheegi rabaa markaan cudurka aan ku sheego parasite-ka intuu nooc yahay inaan ku raacsiyo waxay yihiin intaas cudurada soo gudbi kara oo balaadka soo gudbi kara marka waxaan ka sameynay daynile iyo wadajir maadaama ay u badan yihiin xoolaha u badan yihiin laba meel u badan yihiin ayaan ka sameynay